kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada Qool Media Tv xogta qarsoon waxaad ku daawan doontaan ama aad ku dhageysan doontaan xaaladii ugu dambeysay ee Itoobiya Israa'iil oo soo jeedisay in la weeraro Iran muxuu Sacuudiga ka yiri ku soo dhawaada mar kale Qool Media Tv iyo xogta qarsoon. Dowladda Itoobiya ayaa u dhaqaaqday inay joojiso kacdoonka ka socda gobolka Tigreega. Dagaalo soo cusboonaaday ayaa ka qarxay gobolka Itoobiya ee Tigreega Sabtidii iyadoo xukuumadda Addis Ababa ay u dhaqaaqday inay joojiso kacdoonka ka socda aagga xasiloonida laga qabo. Ciidamada Itoobiya ayaa bilaabay duulaan ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada caasimada u ah Tigreega ee Mekelle. Diblomaasi Itoobiyaan ah iyo hogaamiyaha ciidamada Tigreega ayaa u sheegay Reuters warkaasi. Goobjoogayaal ayaa sidoo kale u sheegay CNN in dagaal hor leh uu ka qarxay magaalada, kaas oo kusoo beegmay xilli uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ugu yeeray wejiga ugu dambeeya ee howlgalka military halkaas ka socda. Shaqayn la'aanta isgaarsiinta ee gobolka ayaa ka dhigtay warbixin ku saabsan colaadda in la helo mid adag, laakiin mas'uuliyiinta dowladda ee adduunka ka socda ayaa ka dhawaajiyay kororka rabshadaha oo maalmihii lasoo dhaafay ay caan ku ahaayeen rabshadaha dhanka ee dadka rayidka ah, taas oo loola jeedo maamulka Tigreega. Gabriel Mikael oo ah hogaamiyaha jabhadda xoreynta dadweynaha ee Tigreega TPLF loo yaqaano ayaa fariin qoraal ah oo u diray wakaaladda wararka ee Reuters Sabtidii ku sheegay in Mekelle ay ku jirto duqeyn culus. Mareykanku wuxuu si aad uga walaacsan yahay xaaladda ka sii dareysa ee gobolka Tigreega ee Itoobiya. Waxaan taageersanahay dadaalada African Union ee ku aadan in la bilaabo wadahadal lana soo celiyo nabadda. Dhinacyada waa in ay ilaaliyaan dadka rayidka ah isla markaana ay u ogolaadaan gargaarka in la gaarsiiyo qaxootiga iyo dhammaan dadka u baahan caawimaada. Sidaasi waxaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay. Gabriel Mikael ayaa sidoo kale ku eedeeyay ciidamada dalka ay dariska yihiin ee Eritrea inay weerareen xeryo qaxooti oo ku yaala gobolka Tigreega si ay u qabqabtaan qaxooti hore uga soo qaxay dalka Eritrea. Afhayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya aynan duqeyn goobaha rayidka ah, waxaana ay intaa ku dartay inay badqabka dadka rayidka ah ee reer Itoobiya ee ku nool Mekelle iyo gobolka Tigreega ay tahay arrin mudnaan u leh xukuumadda federaalka ah. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu shalay diiday inuu wadahadal la galo TPLF, wuxuuna cadeeyay inay xooga saarayaan sidii midnimada dalkiisa loo ilaalin lahaa. Howlgalkan ayaa ah midkii ugu dambeeyay, waxaana dowladda ay sheegtay in gacanta lagu soo dhigi doono hogaamiyayaasha Tigreega. Xisbiga TPLF ayaa awoodda dalka gacanta ugu jirtay ku dhawaad 30 sano, markaas oo uu kadib Abiy Ahmed uu xukunka kala wareegay sanadkii 2018. Ciidamada federaalka ee dalka Itoobiya ayaa dagaal kula wareegay magaalada Mekelle ee xarunta u ah ismaamulka Tigreega. War qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay in Mekelle ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidanka federaalka ah, taas oo calaamad u ah soo afjaridda wejigii ugu dambeeyay ee howlgalka sharci soo celinta. Sida lagu sheegay qoraalka, ciidanka ayaa la wareegay goobaha muhiimka u ah danta guud sida garoonka diyaaradaha iyo xafiisyada hay-adaha dowladda. TPLF weli arrintan kama hadlin, balse waxa ay saaka qireen in ciidanka dowladda ay bilaabeen weerar ka dhana magaalada Mekelle. Markaana waxaan isdul taagi doonaa Sacuudi Carabiya, Israa'iil iyo Iran. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa ka cagajiidaya in dhawaalaba inuu aqbalo dalabyada uga yimid ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu si loo ogolaado in la weeraro Iran kadib markii axadii la soo dhaafay ay ku kulmeen magaalada Neom ee dalka Sacuudiga ku taala. Ila waraadiyo Sacuudi ah oo xogogaal u ah kulanka ayaa sheegay warkaasi. Diidista Maxamed bin Salmaan ayaa la sheegay inay ahayd laba sababood. Marka hore wuxuu darsay laba weerar oo dhawaan lagu qaaday
bartilmaameedyada saliidda Sacuudiga sida ku cad fariimaha digniinta ee Iiraan laga keenay oo ay bixiyeen wakiiladiisa. Marka labaad wuxuu ka sheekaysan yahay jawaabta Mareykanka ee maamulka soo socda ee madaxweynaha la doortay Joe Biden haddii ay dhacdo taxadar isdaba joog ah iyo weerar celis. Wuxuu aaminsan yahay jawaabta Biden ee ugu horeysa ee xiisadda Khaliijka inay tahay in la sii daayo ka hor intaan lagala xaajoonin heshiiska nuclear-ka ee Tehran. Kulankii saddex geesoodka ah ee xaddii lasoo dhaafay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo aan xil iska saarin weerar lagu qaado xarumaha Iiraan ee soo saarista uranium-ka sida ilo ka tirsan Sacuudiga oo xogaal u ah kulanka ay sheegeen. Isaga oo ka hadlaya xaaladda aan la magacaabin ilawareedka ayaa yiri kulanka Netanyahu wuxuu ku taliyay in la garaaco taas oo micnaheedu tahay in la weeraro. Pompeo wuu ka aamusay magaalada Riyadh. Halista weerarka Mareykanku ku qaado xarumaha uranium-ka Iiraan ayaa weli rajadeedu tahay mid nool, inkasta oo calaamado muujinaya in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Mareykanka Donald Trump uu u muuqdo mid doonaya inuu qirto in looga adkaado doorashadii ka dhacday Mareykanka. Intaanu xog midaan la mid ku kulmi doono, waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.